كان يولد إيشن فيصل على وراء waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa ardayda maanta qalin jabisay iyo waalidkood waliba hooyooyinkood aan aad iyo aad u hambalyeeyaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayda ka dhigo qaar diintoodii iyo dalkoodiiba anfaca ilaahay ka dhigo macallimiinta waxbartayna waxaan leenahay ilaahay jasaayid ka siiyo subxaanahu wa ta'aala culays baad naga saarteen ardaydeena maanta waxbartaan ee uu sheegayay agaasimuhu afarta kugu gaadha badankoodu waxay badan yihiin dad jaamacada ay sameeyeen shacbiga cabdiqali oo kala midhan walaalayaal waxa weeye hadda wuxuu ka sheekeynayay siyaasi wala cadde arda markii dalka la soo galay ayuu ka sheekeeyay si burca u ahayd amaan yar waxaan tusiyaa markii dagaalkii sokeeyay si uu ka amaan yar tusiyaa subxaanahu wa ta'aala laana waxa weeye haddaynu taariikhdeena aanaynu xasin mustaqbalkeena ma hagaagayo ana waxaan gudi nabadan ahaayo calimo qurays nabadu waxa gudu shaqeynayo waa kada dawlad kasta uu ku jiray waa dhaxalku baliga samaysay ba weeye ayuu ka helay guriga alxamdulillah banaagu baligi geysayna la yadiicu ajr muhsiniin ilaahay subhanahu wa ta'ala inka soo qaar qoriyaasi tay markana ay saaw maaliya Soomaaliland haday soo nabad ka shaqeeyay halka maan imo yaro waan ku socdo ood weyne iyo ood waa kala deganayday magaalada qori uu ba taagnaa nin qori sito yaro wadada saalo wada degan yahay oo baaburka haduu meel ka soo furaydaan lahayn ay qaybna waxay deganeen meesha la ilaaho burco baash ood weyne waxa igu dareed maalinta anigoo jooga jigjigaan oo jooga gudi nabad ah oo nin imaka af Soomaaliga barto ya mat oo Canadian oo sahan buu leeyahay oo naga shaqeeyay nabadda ayaa yiri Hargeysa burcan ka imo Hargeysana farxad baan ka imo dadkii nabadda u baahan yihiin burcana waxa lahaa lagu duulo ood weyne oodyaha lagu duula hada oodna laga daba tago qorada halka tagteena waa futax bay noqonaysaa walaa soo jeesanayaan goobta marka saanade wariya arintaas yaan kala hadlo wixii dhagaweyna kala hadal waligeena dhagaweyna ma arag Hargeysa imo waxaan idin waxa la yeeshay Abdullah Faar Harbi iyo dhagaweyna saaxiibihiin Abdullah ninka oo reer xamar isku yahay ninka ama taqaanaa iyagu yeed haan ku yahay burco iga yeero habeenkii igu yeero hodelka maaweel waxaan arintaas jirta nimanka xamar ka yimi hubna meesideen yaro dharaysideen oo wayna wadaadiyeen markay yimaadeen yaro dagaalka la joojiyay oo iga aqbalay horta burco caynkaas ahayd burco markii aan jaamacadda dhiginay amuud dhaga dhiginay iskuul ma ilaaheen 98 kii way iskuul ka horeeyay leeyahay laga bilaabo meeyarkii wanaagsan Maxamed Xuseen ayaa yiri iskuulka ay caawiyo filaana oo joogna jaaliyada suuqa lacag ban ka soo ururinay inta ka burco macaawada burco ku qornaan lacag soo ururinay horta waxaan iska codsanayaa Maxamed Xuseen in iskuul loo bixiyo hal iskuul u bixiya meeyarka burco markii horeysay nabadda la qaatay ka sameeyay burco waa taas burco وحريد السومالات بانو إله سبحانه وتعالى إذا واحد هو مقالي رجع ومقالي رجع يدمر كمان لا ما وين صار دمر كونه وكركر وأنا قارن أنا هذا مثل ما يقص وقع شيء مهم يركي يلا بقول سيدي الحمد لله رب العالمين وهو
Somaliland taariikhdeeda marka laga qaado 60kii ilaa iyo maanta marxalad badan bay soo martay Somaliland British Protectorate baa inoo oran jiray oo shanta Soomaali degan tahay meeshii uu tacliinta badneed bay lahayn shan waxa lahayn professional schools way lahayn laba secondary baa lahayn oo Amuud iyo Sheekha oo u dhigma jaamacado tacliintooda oo halka ragga Soomaaliya markaan isku darnay Soomaaliya madaxda ka noqday labada iskuul ka soo bixin badankooda وعليهن teachers school بالهن teachers school بالهن TTC بالهن training school بالهن nurse school بالهن انت من الصومال مالهن صومال واحد حندورتا مجانا ساي culture كا يدقن كصوماليات بهن وح الله يوحى بهنينا كصوماليا يا صومال ما كسكوت كان كهيس يشري وألف يشري هرجيسة كبر بارين واحد ماشى ما قال إذا تاريخ اللي جانيو هل جنكه شيخ بشير رئيس المال البها فرح عمر رئيس المال البها تعليمته أبوها تعليمته محمود أحمد علوها أبوها هو في عن سوقانته عبد قرشوها أنا سومالان كلا شيء ما يبرعي هرجيسة سومالان بوها يا هرجيسة سؤال الرملة لحنا كيما كانوا دولة لماذا قاعدني دولة لماذا قاعدني وإحنا وسط قيني كل كاشينات شنتي سومال سوله لله كل كاشينات أيه المركي اللي يدي سنادين على الدري يلا بدأ ترجمانية ما يكل مريمة يو دبع علينا يصدح السلطان المدير والمديهاي كل كشنات لما رئيس سومال هنيين برتكتريتك وحلوات درا إن الدولة إن سومال لا تكون سعوديان كل كشنات إنجليز وحيد كي تكون سعودي كلمة حرنا باين السنة ياهي يديك حرة دولة إثيوبيا كلا قرقرتهم وكلا شيء ويصون نقطة وحيدة هي دولة ما وضنا كل كشنات وحن وضنا لكن gobonnimadii halkaas ka bilaabatay gobonnimada doondoonka horta meesha wax kale inuu tagno muusumaynu doonane waxaynu taashan Soomaaliya isku keeno maanta shantii Soomaali way kala tageen shantii Soomaali Djibouti oo horeysay 77kii maxamed siyaad bare ku yiri Djibouti markay aragtay faynuuskii Soomaaliya baqtiyay ay laambadeeda iska haysatay baan ku yiri wata maanta de super power way noqoto geeska siyaasadeeda ka ciyaarta gees weyn NFD waa aragtay waniga u qaxnayba kila kii shanaad sayidkii baa ka taagan sayidkii muqdisho laga burburiyay sayid maxamed cabdullah xasan baashiisa baa ka taagan inaguna waanaga subxaanahu wa ta'ala taagan leenahayba waxaynu soo ceshanay wixii ugu qaalisanaayo de marbay talada wadankeena gacanteena ka baxday marbaa dhulkeena la kala sheegtay daartaana qaadanayo ma qaadanaysa oo lagu tala galay sida Falastiiniinta inuu ku waarno xiriyaha qaxoontiga kuuli ka noqono tii halkan dadka lagu abuuray wadabalta ogaado waxa la isku hayaba garanaysa waxa weeye maantana waa dalkeenu 30 sano jiray waanu isweydiinaa gaaladu marka accident dhaco waxay la what went wrong maxaa qaldamay lixdankii maxaa qaldamay lixdii waxa qaldamay hala isku darsama dale wax barnaamij union of act maynu sameyn gorgortam hadda dukaan wala qof wada yeelanaysa wax xisaabtamaysa waxay heeloon isku xumay iyo wada fashilaan ay dhacday Ahmed Kays ilaahu naxariiste ayaan 2008kii ma uu tagay Mareykan waxa baarlamaanteedii la soo doortay ninkii u tacliinta badnaaba waxayna adeer maanta dhibaatada haysa waa tii lixdii noo geysatay maxaa gorgortan iyo sameeyay heshiis wixii waa 3 markaan xamar ku socon nin la hadlayaa ma jirin ninka saysa qadabaysanayay horta maantana waxa halka ayna dhigay waxa weeye waa tashilaan weey
waxayna dhigay halkaa qabyaalad bayna dhigtay waxa ka hadlayay waracadde madaxweynaha markuu soo baxo deyneen dad reer buu ka dhashay garc maahee waxa la oranayaa waa dawladii reer hebel baa la leeyahay adoo reer hebel hadduu halkaa fadhiisto shaydaan aynu garanayna waa u kala dheeraynaysaa kaa garanaysa qabiil ka dhigaysa asxaabtii baa ka dhigtay qabiil anakayga waxay dhahaa waa xusbi karxajis war marka xusbiga sameeyni dhalinyara mumkin aan sameeyno xus sameeyno siyaasiyiinta hore bedelle ma reer baa la sheegay ilaahay ku dhaariyay beelaha dhax waxay lahaan reer boorami reer laasxaano saddexda xusbe reer baa haysta oo yaa u diiday inay furtaan waa tila fura asxaabti yaa u diiday ilaahay ku dhaariyay saddex shan habar iyo shan urur bay faantaa furtay shan urur oo madiinan tahay yaa isku joojinayay hala furto hadda waxa idin sheegay waa maanta ardabaati dariiqa maanta furmay ee furmay Baturi Abdullah ina mooy Abdulkarim mooy dadka footooyin waa idinka maanta laba kala doorto ina jilmiga safar wasiir la siiyo oo reeruhu family-giisu cunto siiyo ina mustaqbal doonataan wariyaa iskuul dhisaya wariyaa wadad sameynaya wariyaa biyo sameynaya ma xalinta wada agiseeno galbeedkan barigiino ama jiirataan isbitaalkii kala bayn ee in reer Djibouti dhistay toojna ma haysane mobilka waxa laga leedkeeda ayaa laga umulini leed ma lahayn wax kala baynkan galbeedka waxa si la geeyaa meel wax la geeyaa ma jirto laana waxa weeye de waxa la sameeyo man ilaa wasiir nasiib ma jira ma aragtaa mid cumaamad sidoo leh tuuleedii biyo ma leh iskuul ma leh caafimaad ma leh ma ka maqashaan wasiirna nama saxeen waa wasiiru dooy hadhooto ugu soo shiro mobilka bala iscun baan iscun waxa weeye maanta waxaan leeyahay doorashada idinka foodka bixiya kuwa meelaha ka hadla lacma bixiyaan cod maanta waxa weeye guush aynu keenay ee doorashadii ee dul saarnay ee nabadda inoo gashay ee wanaag ku dhacday ilaahay ma u duceeyaa Muuse is dul saaro lacagna bixiye ha u duceeyna insha Allah taala okay ima kana wuxuu yiri tii madaxweynahana on time baan dhisiyaabay ilaahay khayr rasiyo subhanahu wa ta'ala doorkan shaydaan lama shaqeynay ilaahay baa halkii wanaagsanaa doorkan shaydaan baa la faqay laakiin doorkan waxa weeye inta haddii loo sameeyo taariikhdu ku geliya siiraaya wuxuu taariikhda ku geliya DB World Base-ka iyo kali doorka ayuu ku geliya isna wuxuu ku geli doonaa madaxweynihii laba doorasho ay dul saaray madaxweynihii aan kororsan ayanu u duceynaa insha Allah taala yustaba hadda waxa jira guusha dambe ee sugina hadda cadawgeedii waa batay soo jeesaday ayaa la doonayaa inay naga jeesaan war meesha waa isku mid Allah la anonayo British waa isku mid la oranay waxaan leenahay waa in dawlad waxa fadhiya wasiiradii ugu fiicnaaya Maxamed Xaaji Aadano khaatubaan isku barano waa nin fiicane gowraha waxaan doonaynaa inaynu gacmaha ismarsano oo aynu qoriyaha inagu isku soo jeedino kor u jeedino ayaa doon cadawga aan la eegno doon markaan inagu noqono ismidowno Maxamed Siyaad Barre maxaan ka adkaanay iyo diyaaradihiisii iyo South Africaankiisii midnimo iyo Allahu Akbar yaan ka adkaanay labada waynu ka tagnay waxaan jecelahay inaanu doorashadaas si fiican ugu dhacdo mustaqbalkiinu wuxuu ku taagan yahay Soomaaliya nabadaas inuu ku darno development horumarna maxay noqon ku imanaysaa inagoo jawi adduunku soo jeedsado 230 shirkadood ayaa maanta doonaysa in firiiso ka hawl gasho laakiin maxay u baahan tahay good governance dawlad wanaagsan oo law and order oo climate wanaagsan jawi wax ugu gashaday u wanaagsan taas maxay ku imanaysaa
inagoo wada jir ka wada shaqayna insha Allah taala wala waxaan leeyahay waxa wadanka la yiraahdo imaaraadka waa wadanka qura ee inoo bareeray inagoo la ixtiraafsaneen inay heshiisna la galaan waa wadanka inoo furay DB World 440 milyan waa wadanka inoo kalidoorka maanta Hargeysa kalidoorka tagwa jaale oo dhamaanaya waxaan ka xumay Maxamedow kalidoorkana uu dhamaanaya wadadii Hargeysa ilaa Burcan way sii dumisaa marka waxaan macaashin ma jirto tan go'do taasina waa faa'iido yaran mayso iyada ribeeranka lagu sameeyo waxa weeye inta in ka badan ayaynu ka heli lahayn dawladda imaaraadka oo saaxiibo badan bay lahayn oo soo kaamil lahayd haddaynu capacity-deedii aqoonteedii la macaamil lahayn arahayn waxa la damcayn la joojiyo mashaariicda dhagay ka fureysteen laana waxay arkeen buqbuqada ilaahay ina dhigay bay arkeen wanaageeda ay arkeen mara waxa leeyahay walaalayaal waa inaynu waqti wixii aynu dadkeena future u sameeynaa waa inaynu mustaqbal u sameeynaa waxay weeyaan wala weyntu waxay ilaahan tiyaatarkayga waxa nooga heesaa qaar yar oo gaagaaban oo burca ka yimid bay ilaahay haasay ugu ilaahay inagu meenu tiyaatar u sameeynay meenu garan ku ciyaar u sameeynay meel ay ku maarowaan dhalinyartu meenu sameeynay waxa weeye inaan dhalinyarteena daryeelnaa aynu xiriir la yeelanaa aan xiriir la yeelanaa oo inuu wadanka la socodsiina waxaan leeyahay walaalayaal baalkan haystaan mobilka social media xumaanteena ay u furteen Soomaaliya iyo caasidkeenu ayibteena deedukuna wanaagayna oo inaga celiyo waa Soomaaliya madaxweynuhu sheegayay bahasha inaga geerida bi waayida ka dhalinyarana ma naqaanee taa waaweyn inaga geerida bi waayay cyber work inaga geerida walaalayaal waxaan halka ku soo dhameynayaa maanta Soomaaliland waxa soo gala barigii kacaanka aad ba loo guran jiray oo intii boorma yiri maan buuxin karnaa buu kiish afkiisuna sayciyaalo dabadiisuna xamar taalabi waa ku guranayay maanta waxaan ogahay corruptionka Soomaaliland inuu ka weyn yahay qofka tuugi hadduu yahay tuug dibadda ka yimi iyo ka gudo ay ka khatarsan yihiin moogta nin gurigiisa xad yama u taageelisa maanta lacagta la inaga xado wadanka reefayugiisa la inaga xado oo musuqmaasuq lagu xayaa ciiday ka badantay wili ma aragteen orod baan in la xiray oo leeyahay musuqmaasuq loo xiray ma jirto waxaan leeyahay dawladana accountability la sameeyo waa inuu qofka meesha jooga qof kasta uu accountable cid u yahay cidna haddii cid accountable u noqon qofba halku joogo wuxuu doono ka sameeynaya taasna dawladdan ku adkeynaya waxa weeye marka waqtigii yooyooda ka wada dhaafay waqtigii wada shaqaynta iyo magaalada hirgelinta iyo diyaar garowga guurtida iyo madaxweynaha guurta waxaan ka sameeynaa public debate ayaa laga furaya hadaa la ilaahay waxa laga doodayaa horta guurta ma u baahanahay guurtiyay hadaa la ilaahay guurta yaa noqonaya macalin noqonaya oo siyaasi gaboobay ah ma waxa noqonaya sheekh ma sultaan baa noqonaya ma umidig lixdan jir noqonaya who is going to be good number 2 waxa weeye haddii la yes sida guurti loo noqdaa guurti sida loo noqdaa ma lagu soo xuliya haddii lagu soo xulay sida lagu soo xuliya ma lagu dooranaya haddii la doono xasiya loo soo dooranaya number 3 waxa weeye guurti maxay qabanaysaa guurti maxay qabanaysaa waa inaan ka fikirnaa number 4 waxa weeye guurtay tirada horta waa imisa tiradaadu waa imisa adduunka laba guro isleeg 2 iyo 8 adduunka Soomaaliya Soomaaliya waa 4 ya leedahay kuwa saayimka babli dhiga laga furiya sons of bank gogasha dhigisa waa la casuumiyaa marka inta aan helna jawaabteeda ayaa intaan mail gaarin ku dhaqaaqi doona insha Allah taala wixii aanu sameeyno dhan way noqoto wax intelligent wali aynu ka baaradegnay oo marka why you have ad ka jawaabta bara saabkana waxaan leeyahay bara saabka cusub xafiiska bara saabka barigi dhootanimi aan waxaan tagay xafiiska bara saabka geey bara saabkana ku xigeenah oo qol fadhiyaan ugu tagay
waxaan moodayay inuu yahay xogayntiiyo oo xafiiskii barada dawaa kan buu yiri walbi waay wanaga maanta meeyada yaryar ii soo sameynay xafiis barasaab oo shaka barbaro kala dhisa macnaha yar inuu haystad moosay tugayo saaxiib moogtay haybada barasa governor togdheer waa inaynu lixda gobolba lix aqal oo barasaabyada ah وعنك بيستاني وين ودسنا إن شاء الله تعالى برعو دانيرتان يوصل سميني مانتا نصيب الليدي لابد أن يروا إشيقانو إنشو كسو شغيور قنيا أيان يسو سعوني برعو وين مدودي هذي برعو مدودي سومالنا وين مدودي إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته